codsaday inay meherka uu noqdo bacdama tacsi ii taalo inuu noqdo mid qarsoodi ah sida qarsoodida abaan walaashay ku mehersaday saasaan maartay muddo kooban iyadoo ballanteedu ay ahayd in guurkaygii halka ka sii socdo gabadhaydii aan maartay si sharaf leh u soo doonto aan la guuro ama anigu u soo guuro ama halkeeda ay ii joogto oo guri aan maartay u habayo ay ii deganaato arrimo kala yimi gabar kala isguursanay waqtigii haduu iska sii dheeraadayba hawlo badan baa iska dhacay aakhirkiina gabadhii calafkaygii waa soo kala maartay waa soo gaabtay dadkuna waa kala tagaa in la kala tagana ceeb baaha waxa weeye cadaadis baa wuxuu iga fuulay qoyskaygii xaggii guriga waxaa noqday nin dheri labada dhinac ka gubtay geel laba midig la maalay maxaa la oran jiray dheelmay dhinacna uma bid qabo taasi waxay keentay marka in gabadhii xiriirkayga xumaado telefoonadii inaan ka dasaday iyo inaan markii gabadhii kale ay xanta soo gaartay inaan iyadoo horteed gabar qabay wiil ii hayso halka ii joogto xaawilina waa garanaysaa maseerkeeda iyo hawsheeda haday gabar ku kacdo waxa weeye nabadi guriga kuma taalo waxaan bilaabay inaan dafiro dhaho maba qabo weligay ma guursan wixii ma dhalin waxa weeye waxa laga hadlayo aniga maaha si hoose inaan u dafiro arintiina gabadhii inaan saa ugu sii kala ordhowno maantana qarxaasi oo bulshada Soomaaliyeed soo gaaray oo ay halka joogto khaladkaasna wuxuu yiri laba qof male ana iskale xaal maxaa ku raadaan baan xumaynta ka bixinaya gabadha walaashay wixii xurmo ah oo ay iga mudnayd oo hore iga heli weeday baan hadda diyaar u lahay dood hal iga daayo baraha bulshada la wado hal iga daayo